guryaheena iyo deegaankeena. Kadib markii ay isku tagaan midda dhadig iyo labka, midda dhadig waa ay soo degtaa waxa ayna dhashaa wax aan ka yarayn 75 ukun, aana ka badnayna 100 ukun. Waxa ayna ku kor dhashaa xayawaanaadka baktiyay ama qurmay, ayada oo ku talagalaysa in marka ukumuhu ay dilaacaan ay heli doonaan cunto ku filan iyo hooyba. 8 ilaa 20 saacadood kadib ayay dilaacdaa, waxaana ka soo baxa tixri ama dhase kaas oo quuto baktiga ama qurunka. Waxa uuna tixri ama dhase sii ahaadaa 3 ilaa 7 maalin oo keliya, kadibna waxa uu galaa xaalad ku meel gaar ah, waana marxaladii ugu dambeysay. Waxa uuna ku nagaadaa 3 ilaa 4 maalin oo keliya. Inta lagu guda jiro xaaladaas waxa ay unugyadiisu dib u abuuraan baalal, lugo iyo xubnaha jirkiisa oo idil. Kadibna waxaa ka soo baxda tixsi garbaheedu ay qoyan yihiin, aan awoodin duulimaadka. Xogaa kadib ayay awoodaa, waxaana 4 ilaa 12 saac kadib ayay dhashaa ukun. Tixsigu waxa uu maraa meertarood kala duwan: ukun, marxaladda koowaad, marxaladda labaad,